safiirka Soomaaliya u qaabilsan dawladda Mareykanka Ambassador Iswan oo shir ku saabsan marxaladda Soomaaliya ku qabtay magaalada Washington DC ayuu uga hadlay shirkiisa arrimo dhowr oo quseeya Soomaaliya gaar ahaan hawlgallada AMISOM ay ka wadaan Soomaaliya arrimaha bini'aadantinimada ka bixida marxaladda ku meel gaarnimada gulufka colaadeed ee Al-Shabaab dawladda cusub ee Soomaaliya ay yeelatay iyo xaaladda burcadbadeeda Soomaalida Ambassador Iswan oo shirkiisa jaraa'id u qaatay daqiiqado gaaraya ilaa 30 daqiiqo ayaa waxa shirkiisa khadka telefoonka oo qayb galay qaar ka mid ah warbaahinta Soomaalida oo ay ka mid tahay Radio Delcher waxa uu ugu horeyntii ku bilaabay hawlgallada ay AMISOM ka wadaan gudaha dalka Soomaaliya. Effort against Kismaayo is part of a broad strategic concept being implemented by the African Union mission in Somalia, the African Union's peacekeeping operation. Tan iyo markii ay AMISOM ka howlgaleen Soomaaliya waxay soo hooyeen guulo fara badan oo la taaban karo waxay dalka ka sifeeyeen kooxda Al-Shabaab degmooyin fara badan oo ka tirsan Soomaaliya iyagoo kaashanaya ciidamada xoogga dalka Soomaaliya waxaa toddobaadkan lagu dhawaaqay dagaal ciidamada AMISOM oo kaashanaya kuwa dawladda ku dhaxmaray jubbooyinka kooxda Al-Shabaab waxaan arintaasi u fahanay in ay tahay horumar aad u weyn oo ciidamadu soo hooyeen waxaana jira guulo fara badan oo ay horay u soo hooyeen ciidamadu. dhinaca kale Ambassador Iswan ayaa soo hadal qaaday xaaladaha bini'aadantinimo ee dalka Soomaaliya. I know that humanitarian agencies have already begun some initial contingency planning should there be a larger or more significant flow. waxa kale oo aan ognahay in hay'adaha qaabilsan arrimaha bini'aadanimada ay howlgalladooda ka bilaabeen meelo badan oo dalka Soomaaliya gudihiisa ka mid ah waxa kale oo aan hubnaa in ay wadaan hay'aduhu dadaal aad u xoogan oo arrimaha Soomaaliya ay wax uga qabanayaan. Ambassador Iswan safiirka Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu yiri waxa kale oo muhiim inoo ah haddii Al-Shabaab laga saaro magaalada Kismaayo oo wax ka taraysa xaaladaha bini'aadanimada ee Soomaaliya maadaama Kismaayo ay tahay magaalo muhiim ah. dhanka kale safiirka Soomaaliya u qaabilsan Mareykanka Iswan ayaa warbaahintu waxa ay su'aashay qorshaha AMISOM ee Soomaaliya iyo in ay dhammaan dalka oo idil ay ku fidayaan waxaana su'aashaasi ay raacsatay warbaahintu halka ay marayso qorshihii ku aadanaa in Mareykanka uu safaarad ka furto magaalada Muqdisho waxaase uu ku horeeyay arrinta safaaradda. First of all, the military prowess and bravery of the AMISOM forces absolutely have been critical in recent gains against Al-Shabaab. aasaasidda safaaradda US Soomaaliya waxaa jira wada xaajood maraya meel wanaagsan waxaana jira wada hadallo horay noo dhaxmaray dawladdii ku meel gaarka ahayd iyo waliba midda hadda dhalatay arrintaasina si wanaagsan ayay u socotaa. Iswan mar uu ka jawaabay isagoo oo hadalkiisa sii watay su'aashii qorshaha AMISOM ee dalka ayuu yiri waxaan isku raacnay in ciidamo kale lagu soo siyaadiyo tirada xilligan joogta Soomaaliya muddooyinka soo socda taasoo ay isku raaceen golaha ammaanka iyo waliba midowga Afrika. qorshuhu ma ahan in AMISOM kaliya ugu soo saadiyo dalka balse waxa kale oo qorshaha noogu jirta in aan kor u qaadno tirada iyo tayada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed si ay u hantaan ammaanka dalka Soomaaliya oo dhan. su'aal ay Radio Delcher oo ka qayb qaadatay shirkaasi jaraa'id weydiisay safiir Iswan ayaa ahayd madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu dhawaan shaaciyay in uu Al-Shabaab u qaabilayo xeelado aan dagaal ahayn oo ka duwan hababkii hore ee loola xaajoon jiray arrintaasi sidee ula muuqataa dawladda Mareykanka. With respect to the Al-Shabaab leadership, I've not seen a specific statement of outreach to Al-Shabaab, so we'll certainly be interested in hearing more details about what that proposal is if it's out there. haddii ay wada fiican ku dhamaan karto wajiyada cusub ee Al-Shabaab loola dhaqmo arrintaasina ay xal dhab ah oo muuqda keeni karto waan soo dhaweynaynaa. Particularly ideologically motivated but have cooperated with the movement, we're eager to see them
warbaahinta Soomaalida ayaa safiirka waxay weydiisay su'aal kale oo ku saabsan hawlgalka burcadbadeeda Soomaalida lagula dagaalamayo iyo sida arrintaasi Mareykanku u arko. We're encouraged that the number of successful pirate attacks has actually continued to reduce over the last year plus. waxaa dhiirigelin weyn inoo ah in weerarada burcadbadeeda iyo weliba ficiladoodu ay hoos u dhaceen sanadihii ugu dambeeyay. arrintaasina waxay muujinaysaa dadaalka xoogan ee la sameeyay, waxaana muuqata in dalal badan oo adduunka ah ay gacmaha isku qabsadeen howlgalka midowga Yurub ee la dagaalanka burcadbadeeda. Iswaan oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi dowladda Mareykanka waxay diyaar u tahay in ay mashaariic horumarineed u samayso dhammaan dadkii ay saamaysay dhibaatada ay la yimaadeen kooxaha burcadbadeeda Soomaalidu. mar warbaahinta Soomaalidu ay wax ka weydiisay Iswaan bal aragtida Mareykanka ee ku aadan isku dayga dhawaan la doonay in lagu kharajiyo madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayuu uga jawaabay. There have regrettably been a number of IED or body-borne IED attacks in Somalia in recent years, including some very dramatic ones. dhabtii ma cusba qaraxyada ka dhacaya Muqdisho. waxaa horey Muqdisho uga dhacay qaraxii Saamow, qaraxii Hargaha iyo Saamaha, ismidaamintii tiyaatarka iyo weliba isku daygii ugu dambeeyay ee la damacsanaa in lagu qaarajiyo madaxweynaha cusub ee Soomaaliya. arrintaasi oo dhan waxay dhiirigelinaysaa in laga fuljignaado dhibaatada ka imaan karta kooxaha Al-Shabaab iyo weliba argagixisada caalamiga ah. hadalkan ka soo yeeray dowladda Mareykanka ayaa ku soo beegmaya xilli Soomaaliya ay yeelatay hoggaan cusub lagana guuray marxaladii ku meel gaarnimada ee dalku muddada uu ku soo jiray.